maanta waxa dhacay waxaan fiicnayn wax laga naxo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhufayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jihaadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteenni ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax kastoo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharci inuu gacantiis ku qaato ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u abiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiifiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u naxaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortagi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meeluu ku dhinto heli maayo meeluu galo heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaal ah ma aha inay magaxumo siiyaan askarta ma aha inay magaxumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad tayrani ah oo kaligiistali ah annagu manihin kaligiistali manihin rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawayseen waa ogeedeen markii nala doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in lagu soo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay
waana sii eryeennaa waana ku daba jirnaa ma aha intayna soo dabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma yeelayno dowladnimadana dib loo dhigo ma yeelayno dowladnimadana dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku yidhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma oggolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadaan ahay waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hoggaamino nabad iyo horumar inaan u hoggaamino oo aad birri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyaysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno ma oggolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay baxsanayaan waxa uu haareeyo kaliya inay ku soo dhuuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay islaan maaha wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma oggolaanaysaan dowladdaani waddadii caddeed ay cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda soomaaliyeed way socotay horaan u soconaynaa ma maqlaysaan horaan u soconaynaa ummaddeenna iyo shacabkeennan u adeegaynaa nabad baan u keenaynaa nolol yaan u keenaynaa shaqooyin yaan u abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan been idinkugu sheegin dalleeyaysan been idinkugu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo soomaaliya maanta meesha ay tala dhigay waa dalley siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil looga dhimatay imisaa qabiil oo soomaaliya ku dhimata maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyadooda yaqaana hooyadii gablanta kaliyaa taqaana bes waa lagu soo mooday annagu ma oggolaanayno wiilal soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdha soomaaliyeed in noloshooda lagu cayaaro mustaqbalkooda lagu cayaaro wakti intuu naga lumi karo waa naga lumay mana oggolaanayno cid ku cayaarta mustaqbalka ummaddeenna iyo dadkeenna iyo dhallinyaradeenna waxaan idiin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarnimada soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed sharafka soomaaliyeed wallaahi gacan adagaan ku qabanaynaa wallaahi baa idinkugu dhaartay cidduu raba ha ahaado waxaa ballan nagu ah oo ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo keliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiinna ma istaageeraysaan idinka horumarkii ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu